نينا وحدين أو وحدين أو عيد داوعين أو عيد كهرمان أو بيرك هذا 5 سنة لو ديبي دي السومال لأنه تهلك مريسة لا صعود قريب تهلك مريسة ساعة على الله ذاك باكو تشتي وعلى أنا مدحويني الدنيا دهور الله ما أرق dad aan dembi gelin oo aan wax dilin oo aan wax dhicin oo aan dembi fara la gelin oo la iska xukumo oo la ilaa 5 sano kugu xukumay 4 sano kugu xukumay 6 sano kugu xukumay waa ayaan darooyinka dalka ku jira ee nusqaanta reerkan arab la ilaa nusqaantoodu waa reerka musaab ku reeraagaas ma ku yahay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare aadan xajaali assalaamu alaykum waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka iyo qaranka oo dhan assalaamu alaykum waraxmatullaahi salaanta islaamka ku salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan u sheegayaa madaxweynaha qaranka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxkamadda sare sidii aan horeba u sheegnay waxaanu nahay koonfurta Hargeysa raggii beerta odayga Xuseen oo cilmi nuur ee 9 jirka lagu haystay ee uu ku haystay agaasimaha maaliyadda horumarka maaliyadda qaranku iyo family-giisu uqaashiisa haday tahay iyo haday tahay maxay ahaydey barasaabkiisa iyo haday tahay ma garanaysaa suudaankiisa hariya layda family-giisu kala diray maaliyadda qarankana wuu ku bixin jiray waxaanu haystaa ilaa mintoon abakor Muuse bari naga xiga iyo ilaa reer samatarka iyo reer cabanaha garabis yaala inta u dhaxaysa ayuu family-giisa u diray maalgelintana wuxuu ka bixiyaa maaliyadda qaranka madaxweynaha horaan ugu sheegnay inuu horumarka maaliyadda agaasimuhu gobolka hawd wadada balgubadle xaabala ay sii socoto maantana waxaan u sheegaynaa beertii jawaabteedii way gaadhay madaxweynaha cid buu u soo diray arrinteedu waa halkeedii waa arrinka waa halkii sidoo ku soo diray bay ku ahaatay ninkii maxaa qaranka TV-ga maxaa uga hadasheen oo odayga ugu hadasheen oo beertaas inaanay xukunayn u sheegteen ayuu maalintii maxkamad u gala ilaa maalintii iyo ilaa malinka maanta maxkamad buu ku jiray hoos buu lacag u bixinayay arrintana markhaatiyada wuxuu ka dhigay family-giisii oo aan jirin oo aan deena garanayn wuxuu xukumay ninkayga hadlaya Hargeysa jooga 5 sano wax ma dilin wax ma dhicin cid ma dhaawicin dhaleeca ma geysan aynigeena waa arkaysaa waxa ku leeyahay mudana madaxweyne maanta ragga dalka ku jira ee nusqaanta reerkan arab la ilaa nusqaantoodu waa reerka musaab ku reeraagaas ma ku yahay maaliyadana horaan kugu shanayna baxayso maantana waxaanu ku leenahay dubbaa loo tabi adduunka haddii aanad iska qaban agaasimaha qaranka waxaana koonfur ka iman doonta labada jaare harraa naga xigal iyo gudaha iyaga inuu dilka keeni oo ka shaqeynayo waxaan aaminsanahay inuu sheerarkii wax ku lahaan jiray kacay sheerarkii moorisadu kamid ahayd waxaan aaminsanahay waayo sidoo u shaqeynayaba sida sheerkayba waxaan leeyahay waad ogeydo reer cabanayo reer samatar dagaalkii dilkii ka dhacay dee waa family-gooda yahay waad ogtayo anaga taayadan xoraa laba nin loogu dilay isagoo arrinkii maxay ahaydey arrinkii chaadka laftiisa labadii nin maxkamadda ka shaqeyn jiray labadiiba horaa loogu dilay gobolka hawd baa dilay arrinkaana waxa laga dhigay laba nin oo qaad lagu dilay arrinta horaan u ogeyn maantana wuxuu doonayay inuu ilaa maxkamadan xukun baan sitaa maxkamad baa cid turun ugu dilo waxaan ku leenahay mudana madaxweyne dadku sidii Liibiya la iibsanayaan nimankii ka hooseeyay waxba iibsanayaan waliba family-gayga baan anagu ka hadlo qaybtii family-gayga waxay iibsanaysaa haddii arrinka wax laga qaban waayo waxaanu ku sheegnaa way dhacayaan waxaanu leenahay anaguna waan diyaar garoobaynaa haddii arrin samana looma keenin nalooma yeedhin maxkamadinimay soo dacweyn lacag un baa hoos loo kala qaato xukun un baa shalay dhacay baa leeyahay waar xunkaasi muxuu ku dhacay 5 sano lagu dhiibay ka kala 5 waa nimankayga hadlay oo maxaa laga hadlay maxaa lagu dhiibay qarankii TV-ga ka hadashay maladku xukuma waxaan leenahay madaxweynuhu maatay wasiiradu soo diray way maatay beerteeduna halkeedii bay ku maadsanta laakiin caaladii buu noqon dhacay ninkaas waxaan u doonayaa inuu intuuna xukumo waliba ilaaha maxkamadaha fuliyay maxay ahayd xukun baa lagu soo qabanayay nagu dilo dil ka dhaco alaabtana sida keeg bislaaday oo dab cuno siyaasad waa khaayimad sideeda mudane madaxweyne arrinka hoos u eeg maaliyadda qarankana wax buu yeelayaa sumcadda dawladana wax buu yeelayaa
reerka dhexdiisana wax buu yeelayaa jaararka Soomaaliland wax buu yeelayaa arrinka anagu been ma sheegayno iskamanana sanifin hadaad wax ka qaban weydo cid kasta way saameynaysaa dhaqaalaha ka saameynaysaa waxaan leeyahay qaranka waa salaamaya waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay Soomaaliland waa mid muqaddisnimadeedu waa mid waxa iska celinteedu waa mid marka dircuna laga reeba dircuno inaan kan dircunadu ku jira dircunada isaga qaybta talinaysa waa dircuno dadkii shisheeyaa wax ka tari jiray maaha dadkii cunada soo haray cidda sumcadeena dilaysa ama arinteena dilaysa ama aan la kala garanayn waa dircunadii waa dircunada iyo raggii ragga ahaa la kala fahmaan leh waxaan leeyahay Soomaaliland calankeedu ha sareeyo cisigeeduna ha sareeyo sharafteeduna ha sareeyo cududeedana cid kasta oo ay soo dabaaciday gacanta Allah soo galiyay Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa ninka neebiyay waa gobolka ninkaasi Soomaaliland baa ku jira deeni la waayay manihin rag la waayay manihin rag la waayay manihin samanana looma keenin maxay hayday naloomana yeedin maxay hayday arrinka waa la kala iibsado inta ku dhawaaqun baa hawada maray sidii joornaalkii wixii lagu dhigi jiray waaniga gurigeyga jooga deegaankayga jooga waxaan leenahay maxaa odayga 90 jirka ugu hadasheen baa dambi laga dhigay aynigeyga wad arkaysaa wali Soomaaliland naf iyo maal iyo cirdi midna kama hayo ceeba buuga halayaagade ninaan wax dilin oo wax dhicin oo cid daawicin oo cid ka hor iman oo beerka hadla 5 sano loo dhiibay de Soomaaliland waa halka maraysa la socdo qaybta halka maraysa saaw calooladag baa ku jirtay waxa la madaxweyne garsooraha yarna de ogow oo garsoorihiisa weyn u sheeg oo kale de xukun ma hayn kare cadaalad ma hayn kare de meesha laga dhaqaajiyo agaasimahuna maaliyadii qaranka ilaa garabis iyo ilaa tom inta u dhaxayso ku haystaa hoos u ogow dad u diro caalamka ka war hel wasiirka arrimaha gudaha ogaado reerka Muuse Abakar Reeraabo inta u kala dira dhamaan Abakar Muuse bari naga xiga nin baa xidhan beertiisa lagu haysto cid ku haystaana waa isaga xukun buu gaaray kuwa galbeedna waa tii ogeed waxa ka dhacay de waxaan leeyahay assalaamu calaykum dhamaan waan salaamayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland dhamaan meel joogto gudaya dibadba kolley Jamaal baa hadalkii dhameeyay oo intii nuxur kala hayd yiri anigu wax yar baan ku darayaa oo dhinacan maxkamadaha iyo cadaalad darrada meesha ka jirta marka waxa weeye adduunyada hore looma arag dad aan dembi gelin oo aan wax dilin oo aan wax dhicin oo aan dembi fara la gelin oo la iska xukumo oo la yiraahdo 5 sano kugu xukumay 4 sano kugu xukumay 6 sano kugu xukumay waa ayaan darooyinka ugu waaweyn Soomaaliland markaynu halgan ku jirnay waxaynu ka dagaalamayna waxay ahaayeen cadaalad xumo aynu ka tirsanay dawladda Soomaaliya marka maxaynu bedelay hadii maanta taas halkan ka socoto oo maxkamadaheena ay u dhaqmayaan nin aan waxba geysan in 6 sano lagu xukumo iyo 4 sano oo waliba inta lagu soo doontay meeshoodii iyo beertoodii odaygaas 7 jirkii uu leeyahay oo aan beertu maxkamad gelin oo aan fayl maxkamadeed lahayn oo ay niman doonayaan inay tuurta ku qaataan markii la hadlay media laga hadlay in la yiri 6 sano ku xukun iyo 4 sano waxaan haystaa runtii cadaalad darro weyn inay ka jirto halka oo maxkamadeenu aan ku shaqeynaynin مثلا فاجأ فينجرز يعني قفكي وحسميي دنبيga falka fara kula jiray in la xukumo waajib oo waa sax oo laga falguto laakiin in aan waxba sameeynin oo wax alaali wax lagu hayaa jirin 5 sano ku xukuma iyo 4 sano oo qaariminka la geeyay reer jeelka dawaa cadaalad ugu weyn adduunka taasuna ma dhaqayso oo Soomaaliland wax dhaqaya maaha odayga 3 sano deganaa beertan cid waliba u ogtahay jaarku og yahay ilaahay waxa baroon mood og yihiin ninku qabsaday mataqaana uu leeyahay aniga la beertan waxa laali wax dhugman u haystaan aan jirin cid ka iibisay aanu keenin meel laga iibiyay aanu keenin oo haddana maxkamadda u shaqeynaysa ninkii nooca ahaa waa ayaan daro aad iyo aad u ayaan daraa marka waxaan leeyahay madaxweyne arrinka inaad dib u eegto ayaa kugula talinayna maxkamadda
cadaaladda waxaan kula talinaa inay arrinkaa dib u eegto nimankaa xidhan iyo kuwa la xukumina loo soo celiyo xorriyaddoodii waayo dee wax lagu xukumaan jirinba wax dembiyay geysteen oo aan hadal ahayn ayaan dee jirinba marka anigu intaas kaga baxaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah maxamed xuseen oo cilmi oo ah xuseen oo cilmi inankiisii oo ah reerka ka mid ah reerka beertan iskale aanu dhex joognay imika waxaanu ka hadlayaa arrimahan soo socda inaan cawdo oo dhibaatooyinka jira iyo waxa weeyaan mushkiladaha waxa weeyaan haysta aan ka cawdana qodob sharciya qodobka 18aad ee dastuuriga ayaa fasaxaya waxa weeye beertayadani waxay jirtaa waa 63 sano waa aabahay waa kan waa 90 iyo something buu jiraa waxa weeye beertayadu dee waxa weeye maxkamad may gelin wax dacwada oo beerta xuseen oo cilmi ka jirta oo ka dhacday haba yaraatee horeysiyo dambaysa midna ma jirto waxa jirta beerta adeerkay oo ku xigta beertayada nagu xigta oo beerta koonfurna oo qoynaga xigta ayaa lagu damaaciyay adeerkay dhaxlayaashii uu ka tagay waxa weeye beerta loo qabsaday aabahay ee leeyahay waad iibisay waa beerta adeerkay taasina may cadaanin oo la waayay اللهم صل على محمد gurigeyga waa kan anigu bartana ku dhashay waxa weeye barkadeedii baa ka qodan ayeeyday baa ku aasan walaalahay baa ku aasan waxaan ku aasaartii barkidu aabahay qoday baa waxa weeyaan oo jirto waxa weeyaan qodan oo imaka qodan beertu waa beerta beeran ee waxa weeyaan oodan ee beeran ee waxa weeyaan adarkayso waxana lagu haystaa oo waxa weeye nalagu haystaa waxa weeye haabanina waxa nagu inta nala weeraray oo boolis nala galiyay oo waxa weeyaan la rasaaseeyay oo galimaadna lagu sameeyay fara badan ayaa markaanu cabananayna lagu yiri waxa weeyaan maxaa u cabateenoo anigoo Hargeysa 2 kiiloomitir u jira oo aan leeso qofka waxa weeyaan waa la dacweyn karaa waana waxa weeyaan qofka hadduu dambi galo waa la dacweyn karaa adigoo anagoo aan dambi gelin oo aan gashi gelin oo aan cid dilin oo beertaydii joogna ayaa waxana lagu xukumay 5 sano waxana lagu xukumay maxaa u hadashayna cabateen waxa weeyaan waxa idin haysta cadaalad darrada jirta uga hadashay waxaan u sheegnaa cid qosayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha maxkamadda sare waxa ka socda wadanka in la ogaado ayaa wanaagsan maxkamad meesha mushkiladu ka jirtay ee la isku dadka in carruur loo kariyo la maraya in carruur loo kariyo ayaa la maraya maxkamadihii Soomaaliland iyo booliiskii si qaldan baa ay u shaqeynayaan ismana lihi anigu waxaana loo sheegayaa jananka ciidanka booliiska ciidan haysataa waa mas'uuliyiin dawladda ka watirsan haduu yahay agaasimaha maaliyadda haduu yahay waxa weeyaan jananka ciidanka booliiska haduu yahay waxa weeyaan saraakiil kale oo la mid oo ognahay cadaymo fara badan baan haysanaa beertii aanu lahayn aanu deganayne waxa weeyaan dadkayga ku aasnaaye aanu ku dhalanay baan lagu haystaayo waxa weeyaan nalagu damaceeya markii aan maqlay waxa weeyaan maxkamadda arrintan ka jirta ee imka laygu waxa weeyaan maxaad u cabatay baa lagu xukumayaa ee aan sidii maxkamadda tagoo dacwood waxa la diiday xataa lawrkayga waa la diiday inuu ka hadlo arrintayda wakaaladaydii oo gal kala geliyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo intuu ka saaray uu jeexjeexay ayuu tuuray markii lagu yiri maxaad waxa u samaysay wuxuu yiri lagama doodi karo loomana hadli karo nin aan doodin nin leeyahay waa lagu soo dacweeyay oo aan doodin oo istifaacin oo la xukumo oo waliba lagu xukumo waxa weeyaan maxaad u cabatay uma malaynayaan ugu day waxa weeye wali waxa halkan ka soo socda inuu waxa weeyaan inay dhowdahay wali waxa laga doonaya waxa laga qodqodaya wali ma dhawaa haddii arrintaa waxba laga qaban waayo oo cid ay qusaysa arrintaa si degdeg waxba uga qaban weydo oo arrinteeda si degdeg loo soo faragelin waayo oo waxa weeyaan arrinteeda cid loogaan waayo wax ka xun baa dhicid wax laga qoomay ka dhici doono annagu cidna doonan mayno cid dooni mayno cid ku duuli mayno
laakiin cidda naftayada iyo maalkayaga iyo waxa weeyaan cirdigayga nagu soo weerartaa waa ka jawaabaynaa diyaar baanu nahay waxaanu waxa weeye la socodsiinaynaa oo nuu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cadaalad darraanu ka cabanaynaa cadaalad darraana haysata arrintaa naf iyo maala arrintaa inay si degdeg waxa weeyaan wax nalooga qabtaanu waxa weeye u gudbinaynaa fariinta waxaanu ka hoos fadhinaa cadaalad darrada nagu dhacday sharcigan ka hoos fadhinaa ayaanu kaga hoos jirnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu